musharaxa jagada madaxtinimada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen iyo waftigii uu hogaaminayay oo muddooyinkii u dambeeyay socdaal ku gaala bixinayay qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland ayaa maanta waxay soo gaareen xarunta gobolka Saaxil ee Berbera koor intii aan waftigu soo gaarin xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxaa meel 18 kiiloomitir dhinaca koonfur ka xigta magaalada Berbera kaga hortagay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira cuqaal dhalinyaro haween iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbigaasi waxaana musharaxa iyo waftigiisa lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Berbera kadibna waxay isugu soo biyashubteen xarunta dhexe ee uu xisbigu ku leeyahay magaalada Berbera halkaasi oo hadallo soo dhaweynaya waftiga uga soo jeediyeen mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbigaasi sida gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ee gobolka Saaxil Rood Axmed Yaasiin afkii xisbiga ee gobolka magaalada Berbera ayna tubayiin xubnihii xisbiga ee heer gobol iyo heer degmada waxaanu leenahay ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada walaaltinimo ku soo dhawaada xisbinimo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay musharaxa jagada madaxtinimada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen iyo sidoo kale musharax ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid Cabdirashiid Xasan Mataan oo labadooduba si wada jira taageerayaasha xisbiga ucid ee gobolka Saaxil uga mahad celiyay sida weyn ay u soo dhaweeyeen isagoo sidoo kale musharax Jamaal Cali Xuseen sharaf iyo maamuus hawada u mariyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku sheegay inuu yahay madaxweyne sharaf iyo maamuus mudan balse ay jiraan xubno kamid ah golihiisa wasiirada oo sharafta ka xayuubinaya madaxweynaha isagoona baaqu diray wasiiradaasi waa kan aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen isagoo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlaya dowladdan waxay u baahan tahay xaynta u sameeyay wasiiradeeda madaxweynuhu waa inuu noqdaa qof effective ah oo dalka si fiican u maamulo wasiiradiisa xaynta u sameeyay haddii kale wasiirada gobolka ka baxay wasiiradana waa inay ogaadaan inay shaqaale yihiin oo cid soo dooran waxaan ku faanin gaariga la fulisar waa ka dadku cararayay nin baa shaqada u dhiibay ninkaana ummadda ayaa codsiisay marka waxaan leeyahay qofka shaqada idin dhiibtay wasiiradu karaamada ha ka qaadina oo madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo oo madaxweyne sharaf leh karaamada ha ka qaadina oo mi sharaf waxaana la doonayaa madaxweynaheena aynu dooranay waxaad moodaa in dad hoos cararayaan oo ay karaamada ka qaadayaan war madaxweynaha karaamada ha ka qaadina war waa nin wanaagsan war waa anagu si wanaagsan oo xalaalan uga tartamayna ee idinku hadibina oo ummadana dhibka ka daaya soo dhaweyntii ay taageerayaasha xisbiga ucid ee gobolka Saaxil u sameeyeen mas'uuliyiinta xisbigooda ayaa ahayd mid ay ku muujinayeen xuduudooda taageeranimo ee ay u hayaan xisbigaasi iyadoo waftigani uu ku sugnaan doono xarunta gobolka Saaxil ee Berbera maalmaha fooday nagu soo haya haddii Allah awood u leeyahay idmo Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera.